الصباح wanaagsan khiyaarta hawada nagala xidhiidhay saacada Afrikada bari waa 7 subaxnimo 26 Maarso 2020 qodobada barnaamijka aad ku maqlay doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay caabuqa corona oo farabaan ku haya guud ahaan caalamka dalka Kenya dawladdu waxay soo rogtay tilaabooyin ay ka mid yahay bandow xilliga habeenkii Puntland ardadii iskuulada laga fasaxayo fursad u helay inay isugu yimaadaan garoomada iyo goobaha kale arintani waxa ka degaya khubarada ujeedada loo fasaxayo ma ahayn in meel iyo la isugu tago iyo maxaan ku waxay ahayd in sidii ujeedadu ahayd cudurkan iyo sidii loo xakameyn lahaa iyo waqaaya ama ka hortag ay ahayd marka waalidka waxaan leeyahay waalido waxa la rabaa in aad caruurta ku dadaashaan hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka oo shaaciyay Soomaaliya deemaha laga cafinayo maxay arrintan uga dhigan tahay shacabka Soomaaliyeed hay'adaha lacagta adduunka oo qaabilsan ee bixiya ayaa dawladda Soomaaliya muddo 30 sano intii dawlad Maxamed Siyaad Barre Ilaahay ha u naxariisto xilligaas ilaa iyo hadda waxa Soomaaliya ka maqnaa hay'adaha waaweyn ee bixiya lacagaha soo saaraha barnaamijka waa Ciise Xaaji Cabdulle aniga Axmed Badar ayaa idin la socodsiin doona qodobadaasi way noo soo socdaan balse marka hore warkii dunida iyo Bashiir Maxamed Caato Maasanid Axmed ninka Australian-ka ahaa ee sanad ka hor ku laayay 50 qof ee muslimiinta ahaa magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa qirtay dambiga uu galay mar uu ka soo muuqday muuqaalka dhageysiga maxkamadeyntiisa ayaa Brenton Stratton waxa uu qiray in uu laayay 50 qof raisraha wadanka New Zealand Jacinda Ardern oo ka hadashay qirashada Brenton ayaa sheegtay intaasi xogaha culays ay ka qaadayso dadkii ehladooda ku laayay weerarka ninkan ayaa sanad ka hor rasaas oo dawo qaaday dad badan oo muslimiin ah oo ku tukanaya masjid ku yaala magaalada Christchurch dawladda Mareykankana waxay shaacisay in tirada dadku ku dhacay xanuunka corona ee dalkaasi ay haatan gaadhay in ka badan 60,000 kuwaasi oo kala bar ku sugan New York barasabka gobolkaasi New York Andrew Cuomo oo ka hadlay xaaladda gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay inay muuqato astaamo muujinaya in xayiraad lagu soo rogay isu socodka dadka ay yareynayso faafidda xanuunka dhanka kale madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa ku adkaysanaya in dalkiisa uu furi doono ganacsiga inkastoo ay jiraan digniino ay soo saarayaan khubarada caafimaadka oo ka digay arrintaasi kulanka wasiirada dalalka warshadaha ku hormaray ee G7 ayaa ku guul daraystay inay ku heshiiyaan war qoraal oo laga soo saari lahaa shirkaasi wasiirada ayaa isku khilaafay magaca loogu yeeray xanuunka corona oo iyo halka uu asal ahaan ka soo askumay aqalka cad ee wadanka Mareykanka ayaa ku adkaystay in xanuunkaasi loogu yeero viruska Wuhan maadaama Wuhan ay tahay magaalada ugu horeysay ee lagu arkay xanuunkaasi asayshee dalka Shiinaha ayaa ku gacan saaray arrinkaas oo sheegay inaan marnaba la aqbali karin ugu dambeynna barasabyada dalka Brazil ayaa intooda badan ka soo horjeestay codsi ka yimid madaxweynaha wadankaasi Jair Bolsonaro oo ahaa in dib loo furo dukaamada iskoolada wadankaasi xilli xanuunka corona ku sii faafay wadanka Brazil madaxweynaha wadankaasi Bolsonaro ayaa sheegay in xanuunkaasi uu saameeyay dhaqaalaha wadankaasi oo u baahan buu yiri in dib loo furo xarumaha ganacsiga waxa uu meesha ka saaray warar sheegay in xanuunkaasi uu yahay hergab warkii caalamkana waa nageynta Bashiir Maxamed Caato iyo warkii dunida ayaa dhageysanayseen u diyaar garooba qeybaha idaacadda subaxnimo inooga haray aanu ku bilownay sida warkaba aad ku maqlaysteen cudurka coronavirus ayaa waxa wali farabaan ku haya 5 qaaradood ee caalamka xogayaha guud ee qaramada midooba ayaa ku tilmaamay caabuqa corona inuu yahay mid halis ku ah aadanaha isla markaana ay tahay in bani'aadamka dhamaantiisa ay la dagaalamaan Antonio Guterres ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay in jawaabaha ay bixinayaan dalal gaar ah aysan ku filnayn la dagaalanka cudurka isla markaana ay muhiim tahay in la iska rabsado hay'adda caafimaadka adduunka ayaa dhankeeda sheegtay baahida loo qabo in cudurka baaritaankiisa la sii xoojiyo waliba karantiilka lagu sameynayo dadka uu haleelay dalka Mareykanka waxa imika la xaqiijiyay guud ahaan dalkaasi in ka badan 60,000 oo kiis isla markaana kala bar kiisaskani waxa laga helay magaalada dhanka ganacsiga caanka ku ah ee New York Spain waxa imika la diiwaan galiyay isla markaana tirada dhimashadu ay ka sare martay tirada Shiinaha cudurka ugu dhimatay xukuumadda Madrid ayaa sheegtay in tirada dhimashada ay marayso in ka badan 3,400 oo qof dawladda Finland waxa ay xanibaad ku soo rogtay gobolka Usima oo ah goobta tirada ugu badan cudurkani uu soo ritay dalka Kenya ayaa waxa ay dawladda ku dhawaaqday tilaabooyin cusub oo lagu xakameynayo cudurka corona Kenya ayaa sidoo kale shaacisay in qofkii ugu horeeyay uu ka soo kabtay fayraska COVID-19 madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo khudbad jeedinaya ayaa amray bandow xilliyada habeenkii ah dhimis dhanka cashuuraha ah iyo dhowr tilaabo oo kale oo lagu la dagaalamayo cudurkani coronavirus haddaba si arrintan u falanqeyno waxa haatan stuudiyaha ila fadhiya Maxamed Cabdullaahi oo ka faallooda arrimaha gobolka Maxamed soo dhawo marka hore isleedahay tilaabooyinka ay qaaday Kenya waa mid wax ka tari kara xakamaynta cudurka
axmed waa mahadsan tahay waxbay ka tarayaan laakiin waa tallaabooyinkii bilowga ahaa bandowgu waa habeennimadii sidaa ula socotid 7 habeennimo ilaa 5 aroornimo yacni maalintii o dhan waa la wada shaqaynayaa tallaabooyin kale oo fara badanna waa la qaaday ka mid tahay dadku inay kulmin masaajida iyo kanaa'iska lagu tukanin marka waxbay ka tarayaan sidaan uga jawaabnay laakiin ma oran karayno wax kastay yacni xakamayn karayaan oo cudurkan ileen waa faafayaa faafidduna waxay ka timaadaa dadka kulmaya sida badan yacni sida haddana loo sheegay haddiiba ay noqoto in tallaabooyinkani laga gudbo oo tallaabooyin dheeraada la qaado hadda wadamada caalamka oo kale waxaa jirta in lagu soo rogay xanibaad guud oo dhaqdhaqaaqa dadka ah haddii arrintaasi ay dhacdo Kenya bal ka waran saameynta dhaqaalaha iyo maciishada dalka ay ku yeelan karto dalalka dhaqaalahooda fiican kuwa wax beneday oo wax kasta xidhay dadka masaariif baa la siinayaa kharashkaa laga bixinayaa raashinkaa la siinayaa wax kasta adeega way haystaan oo dadkaasu haddee waa waxa adduunka saddexaad si dhulalka la yidhaaho waxa kama bixi karayaan maxaa dhaqaalaha ma haystaan taariikhda dalkani Kenya intaad xusuusato marna bandow guud ahaan dalka lagu soo rogay ma dhacday wuu dhacay axmed inqilaabkii fashilmay 1982 bishii August 1 maalin axad ay ahayd wadanka bandow baa ka dhacay laakiin cabsidaas waxay cabsi yani laga cabsanayay dadku inay ku dhintaan meesha xabad laakiin wax caynkan oo kale maahan xagga dhaqaalaha dhibaateer baa soo gaadhay laakiin arrin tan oo kale ah maba dhicin hadda waxaan male adduunka kamaba dhicin muddo 100 sanadooda kamaba dhicin wakhtigaasoo itislaadku u yaraa oo dadku isu gudbeynin berigii hore waa markii cudurka daacuunka uu adduunka ku fiday dad fara badan wuxuu ka bilaabay wadanka Spain baan u malaynayaa dad fara badan baa ku dhintay laakiin haddee xidhiirka dadka hadda jira ma jirin marka dhaqaalaha wadankan haddii loo soo noqdo aad buu u dhaawacmayaa haddii la sameeyo wax la benedo oo kaamil ay noqoto 100% haddee wadanku kama bixi karay dadka faraha badan ee wadankan magaalooyinka ka shaqeeya waa dad aroortii intay ka lahaan waxay soo shaqaystaan baa habeenkii la cunaa adoo soo koobaya guud ahaan gobolka markaad eegtid qaabka looga jawaabay cudurkan bal ka waran waa Tanzania way ka duwan tahay inta kale gobolka oo dhan waxaa og tahay Soomaaliya si fiican war ugama hayo waa iska og tahay mashkulooyin gooniya iska leedahay laakiin Tanzania way ka duwan tahay wadanada kale oo Tanzania saa loo socotay masaajiddu way furan yihiin kanaa'isku way furan yihiin diyaaradu way socdaan ganacsigu si caadi u socdaa laakiin inta kale oo dhan waxa weeyaan xanibaad fara badan baa lagu soo rogay waana walwal weynna waa jiraa kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdullaahi oo stuudiyaha la fadhiya maxamed aad ayuu mahadsan tahay isla cudurka coronavirus ayaan ku guda jirnaa cudurka corona waxa uu hakad geliyey wax waliba oo mararkaasi la xiriiray isu imaashiyaha bulshada iyo waliba isdhexgalka waxa uuna cudurkani saameyn ku yeeshay dhanka waxbarashada oo waxa albaabada laisugu dhuftay iskuullada dalalka uu saameynta ku yeeshay haddaba Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha iskuullada la xidhay deegaanada Puntland ayaa ka mid ah goobaha iskuullada albaabada laisugu dhuftay balse waxaa soo baxaysa khatar kale oo cudurkan ku faafi karo ardaydii iskuullada laga fasaxay ayaa waxa ay fursad u heleen in ay isdhexgal sameeyaan islamarkaana goobo badan ay isugu yimaadaan sida garoomada kubadda cagta waxaana arrintan ka digaya khubarada caafimaadka sida uu ku soo warramayo wariye Axmed Cawil Jaamac oo jooga magaalada Garowe xafad baa ciyaarsan laakiin xanuun jir moogda waa qaar ka mid ah ardadii la fasaxay ee banooni u socda sida ay sheegeen xaafado kale ayay rabaan inay la soo ciyaaraan Puntland haddii ardadii la fasaxay waxa ay joogteen kulamada kale waxaana arrintan walaac ka muujiyey maamulada iskoolada iyagoo oona doonayay in caruurta la fasaxay cudurka coronavirus awgeed ee hadda ay ku nogaadaan guryahooda si ay cudurka ay uga badbaadaan cabdi xirsi waa maamulaha iskoolka alxigma ee magaalada Garowe waxaan weydiiyey in ardada ay ku baraarujiyeen xaafadooda inay ku sugnaadaan muddada ay fasaxa yihiin waalidiinta waxaan u soo jeedinayaa runtii iyo ardaydaba waxaana waqtiga marba inaynu ka faa'iidaysano ayaa la rabaa waalidka waxaa la rabaa ardadu waa laba qaybood runtii qaybtood waa dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe iyo waa caruur yaryar runtii ardayna waa ardayda waaweyn oo sekandariyada ah oo iyagu runtii dad inta ka weyna walow dhalinyaro ay yihiin
marka waalidka waxaa leenahay ardada in ay ka warhayaan ay duruusta ay maxaanku idhahdaa ku kormeeraan ay dhahaan wax akhrista la taliyaan maxaanku idhahdaa wareegga badan iyo ay ka ilaaliyaan ilow ujeeddadii loo fasaxayo ma ahayn in meelo iyo laysugu tago iyo maxaanku idhahdaa waxay ahayd in ardaygu xilligaas iyadoo runtii markii horeba ay ahayd sidii ujeeddadu ahayd cudurkan iyo sidii loo xakamayn lahaa iyo wiqaaya ama ka hortag ay ahayd marka waalidka waxaan leeyahay waalido waxaa la rabaa inaad caruurta ku dadaashaan. Saara Xirsi waxa ay ka mid tahay waalidiinta magaalada Garowe waxa ay sheegtay in caruurta ay dhashay iyo kuwa ay ayeeyada ay u tahayba laga xakameyn waayay banaanka. Waxa ay sheegtay in ay ciyaaraha ay u raacaan ciyaalada kale iyadoona tilmaamtay in xanuunka coronavirus uu yahay mid khatar iyo walwal ku haya. laakiin xanuunada sidii loo sheegay dadku aqalada kuma wada shiraan laakiin caruurtu banaanadaasay qabanayaan oo waa ciyaarayaan oo looma taageelayo. hadda iskoolka waa la fasaxay Soomaa. iskoolka waa la fasaxay haddana ma fadhiisanayaan guryaha ma joogayaan suuqay gelayaan aflaamtay gelayaan kubad bay ciyaarayaan meeshay doonaan bay marayaan. maxaad ugu sheegi weydeen in xanuun halis uu jiro? kuma maqlayaan nin weyna inaan weynaaday ma kuma maqlaya waa yahay buu koray oo soconayaa. laakiin anigu waxaan u sheegi lahaa in ay wax maqlaan oo naftooda ay xanuunka ka ilaaliyaan la sheegayo. inta badan waxay waalidiintu ay isku raacsan yihiin in ay caruurtooda ay dibad wareeg yihiin marar badan oo la fasaxayna ay dareemeen in aysan guryahooda aysan ku sugnaan markan oo fasax loo siiyay in ay guryahooda ay ku sugnaadaanna in aysan joogteen. haddana Maxamed Cabdullaahi waa mid ka mid ah odayaasha Puntland waxa uu sharaxayaa sida ay waalidiintu ay caruurtooda aysan uga warqabin. caruurtii waa la fasaxay dhibaato kala jiro dhibka jiro waxa weeye ilmihii lama xadidi karo oo waalidiintii kama adka waana laga sii daayay iskuuladoodii suuqay galaan meelo badan oo isboorti iyo iskugu taga iyo meelo badan oo maxaan ku raahdaa ee kulankii magaalada yaacayaan dhibaato kooyi kale inay sameeyaan baa dhac ka dhaba shidadu intii inay ka badato. marka waxaad isleedahay xanuunkan hadda laga digayay iyo goobaha la iskugu yimaado goobo kale bay iskugu tagayaan ma leedahay xoogaa waxbarashada isteegayaan waa jidhaa meel kale iskugu tagayaan dhalinyaradu waxa weeye waxaas oo ka fikir baayaan inkastoo anagu aynu nahay dad muslimiin oo ilaahayna aan aaminsanahay wixii ilaahay qadarana aysan ina seegayn misana wajdaha wallahi de kuwa caruurtaas ka mid yihiin wixii gabadha horta gabdhuhu waa la xafidi karaa waa la celin karaa laakiin rag ayaa caya ka mid yihiin waxa ugu daran waa wiilasha weeye waka wallahi ni odayaan ahay anigu hawlo badan oo de hadda wax u badnaa inta hawshan la fasaxay xataa miyiba u badnaa hawlo badan oo xagga dhaqanka ah baan ku maqnaa laakiin waa kolley waa waxaan nagu taagan oo aan walwalkeeda qabno waanu sheegnaa waxaan ahnaa war guryihiina ku ekaada حتى مساجد وحبا هذه المساجد لفتودا صلاة كسوتكودا غرينا كو اكادا واخرسكن اخريو دروستي مراجعدي بو سميانا هنا وانا راها وعي gelin waan ku sameeynaha. codkaasi waxa uu dambeeyay warbixintii uu Garowe naga soo diray wariye Axmed Cawil halka nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga ee BBC-da. isla wararka coronavirus haddii aan markaasi si aan baqaadno dalalka Yurub ayaa kamid ah wadamada faraha baan uu ku hayo caabuqa corona. dad Soomaali ah ayaa cudurkan ugu geeriyooday dalalka Yurub gaar ahaan Ingiriiska iyo dalka Sweden. haddaba wadamada Yurub waxa imika laga bilaabay wacyigelin guud gaar ahaan dadka Soomaalida ku wajahan. telefishinka dalka Finland ayaa haddaba waxa uu bilaabay wacyigelintaasi dadka looga digayo halista cudurka. wali xaashi oo TV-ga Finland ka shaqeeya dadkana dhiirigeliya ayaa BBC-da uga waramay sida wacyigelintu ay u socoto. hawshaan bilaabnay waxay tahay Finland iyo Yurub oo dhan dadkii reer Yurub iyo dunida oo dhan wada ogtihiin oo cudurkan coronavirus inuu argayay waxaan marka fahanay in dadkeena degan Finland oo gaaraya ilaa iyo 20,000 oo qof in maaragtay helaan wacyigelin ku saabsan cudurkan oo maadaama tiisiyadooda waddankan iyo meediyadooda ay ku hadlaan luuqadda Finlandeeska ama Finishka ah waxaan markaa isku daynay inaan TV-ga waddankan aan ka soo degno barnaamijyo guugaaba ah oo dadkii lagu wacyigelinayo oo qoraallo iyo cod videoyaaliyo iyo TV-ga qarabka ka soo daayo Finishku ka soo daayo marka midaas waa midda aan aadka aan bilaabnay oo waxaan bilaabnay wacyigelin coronaviruska cudurkan ayaan ka bilaabnay waddankan
marka barnaamijyadaasi waa barnaamijyo noocee ah haddaad noo yeesirto waa barnaamijyo sidee u dhigan barnaamijyadaas waxay yihiin waa barnaamijyadaasu waa basic waxyaabaha maaragtay loo baahan yahay qofku inuu sameeyo si uu cudurkan iskaga ilaaliyo waxyaabaha dawladdu soo saarto ama sharciyada ay soo saarto sida canibaadoo kaleeto iskuullada waktiga la xirayo in maaragta restaurantiyaasha iyo maqaayadaha la xirayo inaan 10 qof ka badan aysan meel isugu imaan karin in 2 mitir la isu jirsado oo labada qof ay kala fogaadaan in gacmaha la iska dhaqo saabuun la iskaga dhaqo 20 second wejiga la iska taabanin oo macnaha waxyaaba aad u tiro badan oo dee information buuxa oo dee run ku salaysan oo aan ahayn informationada qaldan ee social mediada. kaasi waxa uu ahaa weli xaashi oo TV-ga Finland ka shaqeeya waxaanu ka raalligelinaynaa dhageystayaasha haddii codka meelaha qaar markaasi ay si wanaagsan ay u maqli waayeen. wahagaag haddii cudurka corona aan intaasi markaasi uga baxno bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta ayaa waxa ay shaaciyeen in Soomaaliya laga cafinayo deemaha markaasi lagu lahaa. bayaan ay labadan hay-adood soo saareen ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay qaaday tallaabooyinka saxda ahaa ee loo baahnaa si deenta looga cafiyo. madaxa bangiga adduunka David Malpass ayaa waxa uu u hambaliyay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed dadaalkii ay sameeyeen oo ugu dambeyntii horseeda ayuu yiri in markaasi deemahaasi la cafiyo. ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya xasan cali khayre oo xalay shir jaraa'id qabtay ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal dheer u gashay qorshaha deyn cafinta isla markaana shuruudo badan ay ka soo gudubtay. bismillahi raxmaani raxiim safar dheer kadib shaqo adag iyo adkaysi iyo in ka badan 94 shuruudood oo la xiriira dibudhiska hanaanka dhaqaalaha oo lagu guulaystay waxaa maanta noo suuro gashay inaan la soo noqonno xiriirkii aan la lahayn hay-adaha dhaqaalaha adduunka. waxaa ka mid ah bangiga adduunka, hay-adaha lacagta adduunka, bangiga horumarinta Afrika, kadib go'aankii maanta ka soo baxay maamulka hay-adda lacagta adduunka kaasoo go'aamiyey in Soomaaliya ay soo buuxisay shuruudihii deyn cafiska oo dhan. waxaan mahad u celinayaa dhammaan intii suuro gelisay, kaalmaysay, ka shaqaysay, ka qayb qaadatay safarkii dheeraa ee aan u soo galnay guusha maanta noo soo hoyatay oo uu ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, labada aqal ee baarlamaanka, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliyeed, golaha wasiirada dowlad goboleedyada, golaha wasiirada dowladda federaalka, shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo bixiyay canshuurtii ugu badnayd ee dalka laga aruuriyo intii dib loo aasaasay dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo qayb weyn ka qaadatay in ummadda Soomaaliyeed maanta ay soo gaarto go'aankan farxadda leh ee noo soo hoyday. waxaa sidoo kale mahadcelin ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo waddamada aan saaxiibada nahay oo si hagar la'aan ah noogala shaqeeyey sidii Soomaaliya ay u gaari lahayd hadafkan muhiimka ah. kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya xasan cali khayre. arrintan ayaa haddaba ka dambeysay kadib markii dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyinkii looga baahnaa si deenta markaasi loo cafiyo. haddaba muhiimad intee dhan ay leedahay deen cafinta Soomaaliya? su-aashaasi iyo su'aalo kale ayaan u bandhigay Cabdi Cali Daakir oo ah khabiir dhaqaalaha ku takhasusay. dowladda uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo garwadeenkana uu ka yahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu mahadnaqayaa marka hore warka ka soo baxay maaragtay Twitter-ka IMF-ta oo maaragtay World Bank-ga iyo IMF-ta oo ay cadeeyeen deyntii Soomaaliya lagu lahaa qayb ahaan inay cafiyeen. qaybta labaadna 3 sano gudahooda ay u qabteen in haddii maamulka maaliyadda waddanku uu sidiisa sii ahaado oo laga shaqeeyo wixii good governance iyo accountability ay jirto in laga dhaafi doono muddo 3 sano oo dambe ah. marka qayb baa hadda marka waa guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed baan oran karaa marka hore. qofka Soomaaliga ah ee imikana dhageysanaya ee qofka caadiga ah marka uu maqlo deen ayaa la cafiyo su'aalo badan ayuu isweydiinayaa. maxaa la oran karaa in Soomaaliya deenta laga cafiyo way uga dhigan tahay muwaadinka Soomaaliyeed? marka hore dadku inay fahmaan hay-adaha lacagta adduunka u qaabilsan ee bixiya ayaa dowladda Soomaaliya muddo 30 sano ah intii dowlad Maxamed Siyaad Barre Ilaahay ha u naxariisto uu hayay talada
xilligaas ilaa iyo hadda waxaa soomaaliya ka maqnaa hay-adaha waaweyn ee bixiya lacagaha hay-adahaas waxaa ka mid ah caalamka lacagaha bixiya kor waxaa laga yidhaahdaa Bretton Woods si soomaalidu ay u fahanto waxaa ka mid ah World Bank oo 5 hay-adood gudihiisa u sii qaybsama waxaa kale oo Bretton Woods fadhiyo oo ka mid ah hay-adda hadda soo deysay warka oo ah International Monetary Fund oo ah hay-adii maaragtay adduunka u qaabilsanayd lacagta u qaabilsanayd waxa weeye hay-adaha iyaga ah oo dunida siiya lacagaha ummadda maaragtay lagu korinayo dalku dhaqaaluhu u baahnaa wixii horumar ee wadanku u baahnaa lacagtii adkaydaynu u baahnayn waayo global marketka dalkeenu wuxuu raba hard currency inaynu haysano way marka waxaasoo dhan baa loo raadsadaa hay-adaha iyo shirkadahaas waaweyn ee caalamka lacagta bixiya ayaa soomaaliya ka maqnay guul mar labaad iyo mar saddexaad baa ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay marka ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay horumarkaas waa in la helo meel loo raadiyo ama caalamku siduu u dhisan yahay ee lagu wada xisaabtamo lacagaha ay bixiyaan hay-adahaasi soomaaliya muddo dheer bay ka maqnayd waana guul soo helatay ummadda iyo shacabkaba soomaaliyana ay la tartamayso waqtiga xaadirka ah wadamada dariska ah iyo wadamada caalamka bayaanka hay-adahani ee World Bank iyo waliba hay-adda IMF-ta waxaa ka mid ahaa in ay ku farxsan in Soomaaliya imika ay la macaamili karto si toos ah hay-adaha dhaqaalaha caalamka taasi macnaheedu waxa ay tahay in Soomaaliya loo ogol yahay imika in deen kale ay qaadato waxa weeye laba shay waa in dadku ay ogaadaan wadan kasta oo fadhiya United Nations-ka waxa weeye ama wadan kasta oo madax bannaan xaq buu u leeyahay inuu World Bank-ga waxa weeye haddii lacag lagu leeyahay ma weydiisan karto laakiin hadda waxaa badhacday in Soomaaliya laga hor qaaday waxaasoo dhan waxa weeye laba shay ayaa inoo bannaan oo bannaanaanaysa caalamka oo dhan u bannaan waxaa jirta World Bank iyo IMF-ta iyo hay-adahani lacaga ay bixiyaan oo loogu talagalay horumarka taa iyada lafteeda waynu codsanayn waxaa kale oo la codsadaa wixii dhaqaalaha aynu u baahannahay oo kabka miisaaniyadda waad codsanaysaa waxaad codsanaysaa oo kale mashruuciyo kugu jira miisaaniyadda oo culus waxaad codsanaysaa waxyaabaha maaragtay aad u baahan tahay oo dhan marka waxaasoo dhan waxa weeye waa waxa bangiga iyo hay-adda kale ee International Monetary Fund loo sameeyey laakiin Soomaaliya way ka maqnayd muddo dheer bay ka maqnayd 30 sano maxaa ka mid ah tallaabooyinka ama shuruudaha laga rabay dowladda Soomaaliya ee ay ka soo baxday ee horseeday in deemahani la cafiyo adoo soo koobaya dowladda waxyaabaha lagu xiray qodobo ahaa oo ka mid ahayd dakhliga gudaha wadanka in la soo xirayo dowladdu la timaado hanaan maaliyadeed oo hufan waxaa kale oo ka mid ahayd bangi systemka wadanka in lacagtan kaashka ah ee wadanka dhex socota la joojiyo oo akoon loo sameeyo shaqaalaha iyo dowladda oo dhan dalka lacagta galaysa inay central bankiga gasho central bankiga cidda uu warsiinayo akoon uu ku siiyo waxa weeye waxaasoo dhan ayay beesha caalamku ku ammaantay dowladda Soomaaliyeed ee hadda jirta waa guul dalka iyo ummadaba u soo hoyataan oran kara kaasi waxa uu ahaa Cabdi Cali Daakir oo khabiir dhanka dhaqaalaha ku takhasusay oo khadka telefoonka igu warramay isagoo ku sugan dalka Ingiriiska dhageystayaasha Facebook haddii aniga Maxamed Axmed Bulaal waxa uu leeyahay isagoo taleex jooga waxaan soo dhaweynayaa in hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay Soomaaliya laga cafiyo deynta sidoo kale Aamino Ifraax Cabdi waxa ay leedahay hay-adda IMF-ta iyo bangiga adduunka ay shaaca ka qaadeen Soomaaliya diimaha laga cafinayo runtii waa arrin markaasi farxad leh halkaad nagala socotaa wallaanta afka Soomaaliga ee BBC-da wahagaaga haddii aan eegno qodob ka duwan qodobadii hore aad u soo maqasheen Abwaan Saleebaan Caydiid Jaamac oo loo yaqaano Garsoor Jacayl oo ah hal abuur degan gobolka Minnesota ayaa maanso u dhawaan ka jirayay fanka casriga ah ee Soomaalida waxa uu isbarbardhig ku sameeyay fankii hore iyo fanka imika markaasi jira abwaanku waxa uu Minnesota kula kulmay Siyaad Saciid Saalax oo ugu horreyntii weydiiyey nooca suugaaneed ee maasadani uu markaasi uga jawaabayo hortay waa qayb ka mid ah maasooyinka waana jiifto waxayna ka hadlaysaa fankan imika siduu dhalan rogay iyo fankii hore siduu ahaan jirin bay ka hadlaysaa bal maansadan aad ugu magac dartay afdhabaandhab inuu bilow dhaaxuu abwaan jiray dhaqanbile ahaan jiray dad jacayl ku dheeraa dhul jacayl ku beernaa guurowyo dhumucliyo dhudda gabayga curin jiray dadka dhiiri gelin jiray gobonnimo ku dhiman jiray gumaysiga ka dhiidhiya laysma dhiibo odhan jiray markay xaaja dheelido dhuumaha colaadeed tixa dhiibsan tirin jiray dhaymo
uga dhigi jiray dhexdhexaadin reeraha hubka dhigisu noqon jiray masafooyin dhalan iyo jiiftooyin dhaadheer heesa dhimirka taabtiya maxay dhaxalsan reebeen abwaan dhiirhanaan jiray geeraarkii lala dhacay calan dhiigga loo shubay hadheeliyin muxuu yidhi dhaqan iyo tix labadaba sidii iilka loo dhigay dhabaan dhab afweeye xilli hadalku kugu dhago suugaanta dhuuxiyo dhammayleyn abwaane dhisma looma eegay xarfuhun isdabadhiga lama dheeli tirayee tiri bejaj dhaadheer dhaha maase weeyaan wax dhallaan ku tirin karo kala dheegta ereyada naxwo laga dhiraandhirin nuxur lama dhegaystay xigmadliin noo dhura afkii dhowrsanaan jiray kalgacaylu dhaariya tixdii dheeman iyo luul jacaylada ku dhaamiya dhibta caashaq mooye iyo gudbin dhambaal kale waxay sheeka dhaantiyo hadan looga dhiga hees dhacdo weeye dabadeed yidhaahdoo dhakada lula qiso dhabatan weeye isdhexyaaca qiirada suuldhabasho iyo sacbal ku baadha dhiilada hal abuur dhammaystiran dhoodaan aan ismooday u dhaqaaq abwaan hore u socuna wada dhaha kani dhimay fan maahay mid garaaca dhamidiin dharaar cadis qaawiya ku dheela muryo gacan huga cawro dhowriyo badow baa dhar qaatee qaar dhinac bannaan iyo dhejis weeye calaladu dheeh male hagoogtiyo muuqaala soo dhiga dhugashada qof eegay dhaayuhu ilmeeyaan sida reera dhaqashada dhabtii laba isguursaday dhidig iyo lab heeso u matala habdhaqankii dhexda iyo garbaha sare isku dhagatin iyo cirib isku qaada dhabarkoo dhulkaa isku quudhina dhabta sida dhallaankiisa saara dhowr jeer dembi weeye dhabankiyasta salaaxa dhabanada abwaan salibaan ciidi jaamaca oo u waramayay wariye siyaad saciid saalax haddii imikana aan eegno qaybta baaritaanada ee BBC da African ay lagu magacaabo ayaa waxa ay markaasi ogaatay cadeymo ku saabsan in Turkiga ay jabiyeen cunaqabataynta dhanka hubka ee Liibiya waxaana markaasi warbixintu ay sheegtay in jabintii ugu weyneed ay dhacday bishii January isla markaana dawladda dalkaasi Turkiga ay hub markaasi keentay dalka Liibiya waxa la fadhiyay makasuudiha Bashir axmed oo sida sheegtayba markabkan oo dalka Turkiga ka soo ambabaxay gaar ahaan dekada Mersin ayaa waxa la sheegay markii hore qorshuhu inuu tago dekada Gabeys ee wadanka Tunisia balse markii dambe waxa la sheegay inuu u soo weecday dhanka ay wadanka Liibiya halkaas oo la sheegay inuu geeyay shixnad military oo maxay tahay lagu talgalay dawladda Liibiya BBC waxa heshay cadeymo iyo muuqaal ay sawirro lagu qaaday gacmeed oo muujinaya in dawladda Turkiga ay jabisay cunaqabataynta hubka saaran wadankaasi eedeymahaas ayaa waxa loo bandhigay dawladda Turkiga si ay uga jawaabtay balse ilaa imika wax jawaab lagama helin waxaana ay noqonaysaa in Turkiga markaasi ay ku xadgudbeen cunaqabataynta hubka saaran wadankaasi Liibiya oo ognahay inay ku hardamayaan dawladdu caalamka aqoonsan yahay iyo jabhadda General Haftar warbixintaas oo dhameystiran idaacadaha dambe ayaad ku maqli doontaan idaacaddii soo saaray Ciise Xaji Cabdullaah anigu Axmed Badar la socodsiinaya intaas naga dhan si intaan dib u kulmi doono labada duhurnimo sida iyo nabad galiyo